deegaanka Caraweyn oo hoos yimaada degmada Buuhoodle ee gobolka Cayn waxaa laga furay xarun caafimaad. Dhalinyaro deegaankaasi ka soo jeeda ayaa halkaasi ka hirgeliyay xarunta hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka Caraweyn. Helista haweenka umulaya ay ka mari jireen inay helaan adeegyo caafimaad baahiyo ay u qabaan xilliga dhalmada ayaa dhibaato ku ahayd deegaanka Caraweyn iyo deegaano hoos yimaada. xaruntan caafimaad ayaa dabooli doonta baahiyo dhanka caafimaadka oo deegaanadaasi ka jiray muddo sanada ah. dhalinyaradii furtay xaruntaasi caafimaadka ayaa ugu horeyn ka hadlay halkaasi. maanta ay taariikhdu tahay 3 bishii 8 2018 kulankeenu wuxuu daaran yahay ama uu khuseeyaa furitaanka MCH-ka deegaanka Caraweyn. furitaanka MCH-ka deegaanka Caraweyn ayuu kulankeenu khuseeyaa. waxaan u mahad celinaynaa odayaasha deegaanka, hooyooyinka, dhalinyarada, bahda waxbarashada, culimada iyo dhammaan dadka deegaanka waa u mahad celinaynaa. mahad celinta kadib waxaan iyagana u mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyay oo waqtiga ku bixiyay in MCH-kani uu furmo. furitaanka MCH-kana waxa iska kaashaday bulshada deegaanka ayaa iska kaashaday oo contribution inta ururiyeen furay. waxaana MCH-ka la soo gaarsiiyay dawo 1 tan ah meelahaas ilaa 1 tan oo dhameystiran. waxa kale oo la soo gaarsiiyay taangiga biyaha, sariirihii kuwii dhalmada, kii delivery-ga iyo kii patient-ka, qalabkii asaasiga ahaa ee delivery kit-ka ahaa ama HB-ga ama blood pressure-ka ama kii sonkorta ama waxaas oo dhan qalabkii lagu cabirayay oo xarun caafimaad asaaska u ahaa ayaa la keenay. alxamdulillah ilaahay waa mahad iska leh. mahad labaadna waxa leh dadka barnaamijka ka soo shaqeeyay. marka aad iyo aad bay runtii u mahadsan yihiin. intaasna anagu in keenay wixii kale ee ay dadka deegaanka ku darayaanna iyadana waa meesheeda. marka intaasi anaga naga eg tahay. waxaan rabaa inaan kelmad kooban ku soo dhaweeyo. sidoo kale odayaasha deegaanka iyo haweenka ayaa uga mahad celiyay dhalinyaradan halkaasi ka samaysay xarunta hooyada iyo dhallaanka deegaanka Caraweyn. waxayna ka codsadeen xukuumadda in la soo caawiyo si baahiyaha wali ka dhiman xarunta caafimaadka ee deegaanka Caraweyn loo daboolo. labaad dadka noo keenay hawlaha noo abaabulay ee maskaxdooda ku abaabulay ee waliba da'yarta maxaan ilaahay way mahadsan yihiin aad iyo aad way mahadsan yihiin. marka labaad waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha iyaga noo hayay guriga family-ga. marka xigtana waxaan mahad celinaynaa waxa la wixii waxna taro oo dhan way magaalo cusub baanu nahay. dadku waa iska hanti yaraaday waxa la wixii waxna taro noo mahad celinaynaa. marka kale waxa weeye MCH-kan maanta la furay waa si odayaashu sheegeen waa cusub yahay. wixii na rasmi garayn lahaa ama hay'ad ha noqoto ama dawlad ha noqoto ama ha noqoto qurba joogteeda ehelka wiilal iyo gabdhaba waxaan ka rabnaa gacan saar inay noo kordhiyaan guryaha, inay noo kordhiyaan shaqaalaha, dumarka jooga Caraweyn ta dhiig baxda looma helo dawo, tii maxaan idhaahdaa foolata waxde kalkaal looma helo. ilmaha yar waa ka daali qofka nabar gaadha sida deynta la siiso dhiig baxaya. waxa weeye hawlaha iyagu dhakhtar la'aantu hawlaha noogu fara badan bay ahay. insha Allah inuu noo hagaagana ilaahay baan ka rajaynaynaa. marka waxa weeyaan sidaas baan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمada gacanta ku hayaan waa ina warka waan gaarsiinayna insha Allah MCH kan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid buuxiyo baahida dadkan halkan uu qabo dumarkii carruurtu ay ka yihiin uu buuxiyo. meel kastoo dadku nool yahaana waxaad ogaataan caafimaadku iyo xubinta koobaad ama wadnaha koobaad ama baqal ama lambar koobaad uu ka yahay gabar Florence ama qof dhig ku booday ama qof macaan ku booday ama qof nabar ku dhacay waa meesha degdeg ah loogu talagalay markiiba maartay laga caawiyo laga isbitaal lagu gudbiyo. marka arintan waa arin idin muhiima waa shaqo muhiima. magaalada lafteeda waxaan oran lahaa inuu qayb ka qaadano isbitaalka. Faarax Dubad, Goobjoog, Laascaanood.